بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما خميسة لبدا بشا أكتوبر سنة غالا بكون لباتن يشان أو كوبهاغان طبعا كبشا ربيع الثاني سنة كون أفر بقولا فرتن يتضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله إيا برامجكي حراشة وراركا قضبدا آن إذي كوهينانا وحا كمدا Bateau, un autre bateau qui appartient à la petite. Et là, tout ce que vous voyez en plus de petits bateaux, c'est les zodiacs qui sont derrière. وإسرائيل أو قبصتي إن بدن أو كمدها كوليدي دونيها كسي جيدي مريكا قزا سي أي أتشبيان قودومينتا أي كوهايسو دولكا فلسطينيينتا waxaa soo baxaysa cambaareen caalami ah oo ka dhana tilaabada Israa'iil iyadoo Turkigu uu ku tilmaamay fal argagixiso xukuumadda Netanyahu oo shaacisay go'aanka ay ka qaadan doonto dhaqaaqayaashii saarnaa dooyahan ee taageera qadiyadda Falastiin barnaamijyo lagaga soo horjeedo qabsashada dooyahan ayaa isla xalay ruuxay magaalooyin kala duwan oo ka mid ah Yurub iska cabita Gaza oo gantaal ku weeraray dekada loo sii wado dooniyahan ee koonfurta Israa'iil madaxweyne hore oo Afrikaan ah oo lagu xukumay dil toogasho ah maxaa lagu haystaa sidee wax u jiraan warbixin ayaan idinkaga haynaa ruushka oo shaaciyay inuusan aqoonsanayn ayna tahay sharci darro cunaqabataynta halka dhinaca ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku soo rogay dalka Iiraan dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada marka la daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa madaxweyne Afrikaan ah oo horay u soo xukumay wadankiisa ayaa waxa lagu xukumay dil toogasho haddaba aynu eegno wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo halkaasi oo maxkamadda sare ee ciidanka ee magaalada caasimadda ee Kinshasa ay si aan horay loo arag ugu riday xukun dila madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila oo dalkaasi xukumayay intii u dhaxaysay 2001 ilaa iyo 2019 kadib markii lagu helay dambiye culus oo ay ku jiraan khiyaano qaran iyo dambiye ka dhana nabadda iyo bani'aadamtinimada xukunka ayaa lagu sheegay in lagu riday isagoo maqan maadaama uu 2 sano ku noolaa qurbaha tani waa markii ugu horeysay ee madaxweyne hore oo dalkaasi soo maray lagu rido xukun caynkaasi ah dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay Kabila dambiye aad u badan oo ay ku jiraan kufsi jirdil dil iyo qasab qorista dagaalamayaal iyagoo sidoo kale ku tuhmay in uu ka mid ahaa aas-aasayaasha isbahaysiga webiga Congo oo loo arko garabka siyaasadeedka dhaqaaqa hubaysan ee M23 oo taageero ka hela Rwanda eedeymaha ayaa tilmaamaya in dagaalamayaasha isbahaysiga ay ka geysteen tacadiye culus gobolada waqooyiga Kivu iyo koonfurta Kivu oo ay ku jiraan dilal kufsi iyo barakicin qasab ah dacwadda Kabila ayaa bilaabatay 25kii bishii July isagoo oo maqan kadib markii laga qaaday xasaanadii uu lahaa oo ahayd senator abadiyan ah maxkamaddu waxay ku xukuntay dil iyo magdhow lacageed oo aad u badan oo ah inuu bixiyo isagoo siinaya dowladda iyo dhibanayaasha inkasta oo aan dalka Congo laga fulina xukun dila in ka badan 20 sano go'aankan toogashada ee dib loo soo celiyay sanadkii 2024 ayaa dib u soo nooleeyay dooda ku saabsan sida xukunka dilka loo dhaqangelin karo xisbiga PPRD ee uu aasaasay Kabila ayaa dacwadda ku tilmaamay mid siyaasadeed oo cad iyagoo sheegay in ujeedadu ay tahay in meesha laga saaro Kabila isla markaasna laga hor istaago in uu mar kale ka soo muuqdo siyaasadda isagoo mucaarad ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay in xukunkan uu dirayo fariin laba waji ah waa midda koowaad
in dowladdu ay ka adkaanayso jabhadaha hubaysan iyo talabaad oo ah in lagu yaraynayo saamaynta Kabila oo weli haysta taageero ballaaran oo gudaha iyo dibadda ah. Joseph Kabila wuxuu dhashay 1971 deegaankii uu ku xooganaa aabihiis Laurent Kabila ayuu ku dhashay kaasi oo afgambiyey xukuumaddii madaxweyne Mobutu Sese Seko. Markii aabihiis la dilay 2001 wuxuu talada qabtay isagoo 29 jir ah wuxuuna hogaaminayay dal burbursan oo dagaalo sokeeye ay ka jiraan. Inkastoo xilka uu hayay 18 sano dhaxalkiisii siyaasadeed wuxuu ku haray mid mar badan leh. Qaar ayaa ku tilmaamay badbaadiye dalka geeyey kala guurkii nabadeed ee ugu horreeyay 2019 halka qaar kalena ay ku eedeeyeen inuu udub dhaxaad u ahaa musuqmaasuq iyo inuu weeqay hay'adaha qaranka. Waa hagaag markana aynu eegno war weyn oo Ruushka ka soo yeeray isla markaasna u muuqanaya Ruushku inuu ganafka ku dhuftay go'aankii dhawaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabataynta uu ku soo rogay dalka Iran. Danjiraha Ruushka u fadhiya qaramada midoobay Vasilay Nebenzia ayaa sheegay in dalkiisa uusan aqoonsan doonin soo celita cunaqabataynta qaramada midoobay ay saartay Iran. Nebenzia oo shir jaraa'id ku qabtay intii lagu jiray munaasabadda xil wareejinta madaxtinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee bisha Oktoobar ayaa waxa uu yiri waxaan ku noolaan doonaa laba xaqiiqo oo isbarbar socda waayo qaar waxay u arkaan in cunaqabataynta dib loo soo celiyay annaga waxaan u aragnaa inaysan waxba ka jirin. dalalka Yurub ayaa dhawaan ku guuleystay inay dib u soo celiyaan cunaqabataynta qaramada midoobay ee Tehran iyagoo adeegsanaya waxa loo yaqaan nidaamka dib u soo celinta cunaqabataynta si cadaadis dheeraad ah loogu saaro Iran arrimaha ku saabsan barnaamijkeeda nuclearka iyo gantaalada. Iran ayaa diiday adeegsiga habkan waxaana ay ku tilmaamtay tilaabo qaanuunka ka baxsan oo ka hor imaanaysa ruuxda heshiiskii 2015. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa horey u sheegay isku day kasta oo lagu dhaqangelinayo soo celinta cunaqabataynta qaramada midoobay ee Iran ka dhanka ah macnaheedu inay noqon doonto dhammaadkii doorka Yurub ee faylka nuclearka ee Iran. hagaag warkaasna halkaas aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dooyihii gargaarka siday ee Israa'iil xalay ay qabsatay. Cambaarin caalami ah ayaa arrintan loo jeedinayaa. wararkaas iyo qodobo kale intaan u gelin aynu ku hakanno qadar xayisiina. Qari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrad ah. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada Qari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda. ku soo dhowow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic. Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumarba leh. xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso. xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca. ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon, fariin qoraal ah ama online. waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas. xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London, xaafadda caanka ee Shafar Bush. wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Khamiista ah toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraalaha warar faalooyin iyo macluumaadyo kale
waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa tahay xalay intii la socotay barnaamijka qubnaha waxaan idinkugu soo gudbinay iyadoo xilligaasi Israa'iil ay ku sii jeeday in ay qabsato dooyaha gargaarka sida ee ay saaran yihiin dhaqaaqayaasha ka badan 500 ee doonaya in ay jabiyaan go'doominta Israa'iil ay ku hayso marayka Gaza muddo 18 sano ah go'doomintaasi oo ah cirka dhulka iyo badda haddaba warar dheeraad ayaa soo baxaya waxaana la sheegayaa dooyihii badankooda Israa'iil inay gacanta ku dhigtay haddaba intaan idin soo gudbin go'aanka Israa'iil ay qaadan doonto oo ay ku dhawaaqday inay ka qaadayso dhaqaaqayaasha dooyahani saaran aynu eegno warbixin arrintan la xiriirta telefishinka Al Jazeera wariye ka tirsan oo la socday dooyaha gargaarka sida ayaa waxa uu sheegay in ciidanka Israa'iil ay la wareegeen ku dhawaad 10 dooyahaasi ka mid ah oo marayay biyaha caalamiga warbaahinta Israa'iil ayaa waxa intaasi ku daraysaa in dooyuhu la qabtay intaasi ay ka badan yihiin isla markaasna hawlgalka uu sii socon doono ilaa iyo maanta oo Khamiis ah iyadoo maraakiibta la qabtay lagu qasbayo in ay ku xirtaan dekada Ashdod dadkii la qabtay ayaa la sheegay in la xiray halka kuwa kalena lagu amray in ay ka leexdaan wadada ay ugu jeedaan Gaza oo ay u leexdaan dhanka dekada Ashdod warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in dhaqaaqayaasha la qabtay laga musaafirin doono Israa'iil loona celin doono dalalkooda dhinaca kale xubno caalami ah iyo dawlado dhowr ah ayaa si kulul uga firceliyay tilaabadan Israa'iil ay ku dhaqaaqday xildhibaan Barindo Benevi oo ka mid ah baarlamaanka Yurub ayaa u sheegay kuna tilmaamay tilaabadan in ay tahay mid markaasi qaanuunka ka baxsan waxa uu ku baaqay in beesha caalamku ay ilaaliso doonyaha isla markaasna wadamada calamadooda ay wataan dooyuhu ay difaacaan waxa uu xusay in kolonyadan ay muhiim u tahay soo bandhigista go'doominta Gaza isla markaasna tilaabada Israa'iil ay kordhin doonto carab badan oo Yurub ka timaada dawladda Faransiiska ayaa sheegtay inay si dhow xaaladda ula socoto iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Jean-Noël Barrot uu ugu baaqay Israa'iil inay hubiso badqabka dadka la socda doonyahan ayna siiso xuquuqdooda ilaalinta qunsuliyadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa xaqiijisay in ay xiriir la sameysay Israa'iil si loo hubiyo badqabka muwaadiniintooda ku jira dadkaasi dawladda Turkiga ayaa hadal adag jeedisay waxay si kulul u cambaaraysay falkan oo ay ku tilmaamtay weerar argagixiso oo ka dhana doonyahan caalamiga ah ee ku jeeday Gaza si ay u jabiyaan go'doominta ururka shaqaalaha guud ee dalka Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin guud oo Jimcaha dhici doonta si looga mudaharaado ficilkan Israa'iil ay ku qabsatay doonyaha hay'adaha doontan maamulaya ayaa iyaguna bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in tilaabadani ay tahay mid qaanuunka ka baxsan kaamirooyinkii lagu xiray doonyahaasina la dimiyey isla markaasna ciidamo hubaysan ay fuuleen tani waxay dhacday kadib weerar ka dhacay biyaha caalamiga oo Israa'iil ay qaaday halkaasi oo lagu xiray tiro badan oo ka mid ah dhaqaaqayaasha qaramada midoobay gaar ahaan u qaybsanaha xuquuqda aadanaha ee dhulka Falastiiniyiinta Francesca Albanese ayaa sheegtay in Israa'iil aysan u lahayn wax xuquuq ah oo ay ku joojiso maraakiibtan biyaha caalamiga ah marayay iyadoo ku eedeysay qaramada midoobay in kalsoonidooda ay qatar ku jirto maadaama aysan wax ka qaban xasuuqa socda caasimada waddanka Talyaaniga ee Roma ayaa isla xaray waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo lagaga soo horjeedo weerarka Israa'iil ay ku qaaday doonyahan iyadoo boqolaal muwaadiniin Talyaaniga ay ka qayb qaateen banaanbaxa iyagoo taageero u muujinaya dhaqaaqayaasha caalamiga dibadbaxyo kale ayaa isla xaray waxay ruuxeen magaalooyinka Berlin, Barcelona, Brussels iyo Istanbul kuwaasi oo lagaga soo horjeedo qabsashada ciidanka Israa'iil ay la wareegeen doonyahaasi dibadbaxyada ayaa lagu muujiyay carada iyo cambaaraynta xooggan ee ka dhanka ah tilaabada Israa'iil iyadoo shicibka iyo ururada rayidka ay ku baaqeen in la difaaco xuquuqda dadka reer Gaza iyo in markaasi la joojiyo go'doominta ka jirta dhulkaasi ururka Hamas ayaa cambaariyay
weerarka ciidanka Israa'iil ay ku qabsadeen maraakiibtan iyo doonyahan ku socday Gaza iyagoo ku tilmaamay fal dambi ah oo markaasi ah burcadnimo oo ay tahay in cambaarayn dusha loo hubiyo. bayaan uu soo saaray ururka ayaa lagu sheegay in ciidanka Israa'iil ay qabsadeen maraakiibtan oo ay xireen dhaqdhaqaaqayaashii saarnaa, waxaana lagu tilmaamay fal burcad badeednimaha iyo argagixisnimaha sida bayaanka lagu sheegay. Xamaas ayaa ugu baaqday beesha caalamka inay qaadato mas'uuliyaddeeda isla markaasna ay cambaarayso waxa ay ku tilmaamtay burcad badeednimada Israa'iil, iyadoo sidoo kale ku baaqday in la qaado tillaabooyin degdeg ah oo lagu difaacayo dhaqdhaqaaqayaasha midnimada caalamiga iyo doonyahooda. waaye sheekada way noo sii socon doontaa, laakiin doonyahan waxaa loo sii wadaa dekada Ashdod ee ku taalla koonfurta Israa'iil, waxayna u jirtaa wax ka yar 10 kilomitir marayka Gaza. haddaba maxaa dhacay? xoogagga iska caabinta Falastiiniinta ayaa gantaalo ku weeraray. arrinta la yaabay oo xalay afkale la qabsada waxay ahayd xaggee gantaaladan ka soo ridayaan iska caabintu. waxaan idin sheegnay in shalay sidoo kale gantaal ay ku rideen deegaanada ku hareeraysan marayka Gaza, laakiin maxaa dhacay? telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu soo tibinayaa in laga maqlay qaraxyo magaalada Ashdod kadib markii la maqlay seeriga digniinta ka bixiya gantaalada, waxaana la sheegay ugu yaraan 5 gantaal in laga soo riday waqooyiga marayka Gaza. hadda la soco meeshaas Israa'iil waxay ku leedahay waan ka saarnay iska caabinta Falastiiniyiinta. gantaaladan ayaa waxaa la sheegayaa in la qabtay sida warbaahinta Israa'iil ay sheegayso. arrintan ayaa waxaa loo qaatay in iska caabintu fariin ay dirayaan oo ah inay ka xun yihiin doonyahan la qabtay oo la geynayo dekada Ashdod. xaaladda ayaa weli cakaran, waxaana la sheegayaa in bariga dhexe iyo Yurub iyo hay'adaha caalamiga cambaarayn ba'an ay ka soo yeerayso. isla wararkan intayna ka bixin waxaa soo baxaya war sheegaya in mid ka mid ah doonyahaasi markab ciidanka Israa'iil ay leeyihiin oo si toos ah u dardaray. lama soo sheegin ilaa hadda wax khasaaraha oo dhacay. dhinaca kale maraakiibta Israa'iil ayaa waxaa la sheegaya inay biyo xoogan ku fureen doonyahaasi markii la qabanayay. waxaa kaloo soo baxaysa warar sheegaya in markaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ireland isna war uu soo saaray oo si adag u cambaareeyay falkan oo ku tilmaamay inuu yahay mid aad u foolxun. waaye qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubno. qodobka ugu dambeeya waxaynu ku eegaynaa aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegayaa inay socdaan wadahadallo toos ah oo Mareykanku uu leeyahay wadamada gobolka gaar ahaan Khaliijka oo la doonayo in lagu hirgeliyo hindisaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo gudbiyey, iyadoo Xamaas weli laga sugayo jawaabta go'aankeeda. ayaa haddana waxaa la sheegayaa in xaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump qadka telefoonka uu kula hadlay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, iyadoo la sheegay labada nin inay ka wada hadleen arrimaha la xiriira sidii markaasi loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza, isla markaasna loo hirgelin lahaa dadaalada Mareykanku ay wadaan waa sida dalka loo dhigay ee la xiriira hindisaha madaxweyne Donald Trump uu soo gudbiyey. waa tahay qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. aynu barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgelyo. siimoodi dahablaha ugu weyn geeska Afrika. haddii aad samayso wacan dahab aad sugayso saadaalinaysay Singapore iyo saf Bahrayn iyo Hindi, noocyada u sarreeya oo si wacan loo naqshadeeyay, waxaad ka helaysaa xarunta siimoodi. siimoodi waa dahablaha ugu weyn geeska Afrika. dahabyada uu iibinayo waxaa ka mid ah Bahrayn, Singapore, Hindi Designs, waxaana aad ka helaysaa jumlo iyo tafaariiqba. waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa. faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada. Macrifa Academy, saldhiggii quraanka iyo suubanay diinteenna, siradii rasuulka iyo axaadiista sugan iyo saxnaanshaha caqiidada, halka aan ka sugayno si wacan noo barayso. saldhiggii islaamka waa Macrifa Academy oo sahal kuu bari doonto
online kuugu saxayso saacad walba aad heli doonto ee sidaas haatan ogowo macrifo saaxiib laahow macrifa academy akaademiyadda macrifa waxa ay bixisaa casharada qur-aanka kariimka axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam siirada rasuulka caqiidada higaada luuqadda carabiga waxaana ay gaar la tahay macrifa academy casharadu waxa ay ku baxayaan 3 luuqadood oo kala ah Soomaali Arabic iyo English ku baro quraanka iyo culumta shariicada islaamka adigoo gurigaaga jooga faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda